maalin wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaan muuqaalkan aan kusoo koobi doonaa wararkii ugu dambeeyay xiisada maamulka koonfur galbeed iyo dagaalo aad u qaraar oo maanta ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo kaasi oo u dhaxeeyay ciidamadii daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen iyo ciidamo markaasi ah kuwa koonfur galbeed Soomaaliya ee markaasi uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Shaqada Nuur Aadan Madoobe soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku aasaysan tahay 22 bishii Juun sanadda 2026 muddo aynu kala maqnaynay mar kale ayaan hawada dib ugu soo laabanay soo dhawaada ayaan idin leenahay mar kale daawadayaal muuqaalkan meel fog gaarsiiya si aad u heshaan xogii ugu dambeeyay ee markaasi naga soo gaara gudaha caalamka waa hagaag haddii aynu ku bilowno maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dagaal aad u qaraaraya maanta wuxuu ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan aagaga markaasi ku teedsan magaalada Baydhabo kaasi oo u dhaxeeyo ciidamadii daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen oo xilligan wali ku sugan duleedka magaaladaasi wararka ka imaanaya duleedka magaalada Baydhabo ayaa waxay tilmaamayaan in xilligan wali markaasi ay isku horfadhiyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo isku dhinaca iyo ciidamada daacadda madaxweynaha hore ee maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkan balse wararka hordhaca waxay tilmaamayaan in xilligan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay wali isku horfadhiyaan qaybo kamid ah magaalada Baydhabo halkaasi oo ay doonayaan in dib ay kaga saaraan magaalada Baydhabo waa markaasi ciidamadii Lafdagareen ee daacadda ee xilligan markaasi weerar kala duwan ku qaadaya duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shaqada Nuur Aadan Madoobe loo doortay waa markaasi hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dabcan wuxuu ku sugan yahay magaalada caasimadda Muqdisho xalay ayaa magaaladaasi waxa loogu qabtay kulan markaasi sagootin ama cashi sharaf ah waxaana ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xilligan ku sugan magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya halkaasi oo kulamo gooni ama kulamo qarsoodi ah oo horaan loo shaacin oo madaxweynaha Soomaaliya uu ku sugan yahay Shaqada Nuur Aadan Madoobe markii la dooranayay madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in markaasi degmooyinka gobolka Baay ama markaasi koonfur galbeed Soomaaliya laga doortay rabitaanka dadka shacabka oo ku yimid madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Shaqada Nuur Aadan Madoobe balse Aadan Madoobe oo dib ugu laabtay magaalada caasimadda Muqdisho si uu u wareejiyo kursiga golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo xilligan markaasi uu doonayo inuu ku soo baxo Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac wasiirka waa markaasi dekedaha iyo xildhibaan ka tirsan maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa halkaasi xalay loogu qabtay kulan cashi sharaf ama sagootin waxaana halkaasi kaga dhawaaqay in xilligan uu iska wareejinayo waa markaasi hogaamiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya Aadan Madoobe kadibkii dagaal qaraar ayaa ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay talaabada uu qaadi doono waa markaasi hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Shaqada Nuur Aadan Madoobe oo xilligan cadaadis xoogan kala kulmaya ciidamadii daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen iyo sidoo kale kuwa taabacsan Shariif Sheekh Xasan madaxweynaha looga guuleystay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ee markaasi ahna madaxweynaha hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dagaalkan ayaa sidoo kale wuxuu ku soo aadaya iyadoo markaasi xiisad cakiran ay ka jirto maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxayna ciidamada daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen ay sheegeen in mar kale dabcan ay la wareegi karaan magaalada Baydhabo waxayna ku hanjabeen in markaasi ay doonayaan inay dib ula wareegaan magaaladan oo markaasi muddo ku dhow 3 bilood qacanta markaasi maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ka maqan ciidamadan waxa hogaaminaya ugaas Xasan Cabdi Maxamed afayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in si xaq ah markaasi ula wareegi doonaan magaalada Baydhabo waxa uu tilmaamay in xilligan wixii ka dambeeya aan loo babac dhigi doonin ciidamada dawladda Soomaaliya dagaal adagna ay la gali doonaan sidii ay ula wareegi lahaayeen magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka koonfur galbeed Soomaaliya dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in dagaalkan ay ka hortagtay oo markaasi aagag waaweyn laga furtay sida xogaha qaar ay tilmaamayaan ciidamada daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen waxa laga la wareegay aagag ay markaasi ku sugnaayeen halkaasi oo muddooyinkii u dambeeyay ay dagaal ay ka wadeen ciidamada daacadda Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafdagareen oo xilligan ku sugan duleedka magaalada Baydhabo halkaasi oo ay wali doonayaan in dagaal ay ku qaadaan ciidamadii daacadda Cabdicasiis Xasan Ayraade oo markaasi ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee markaasi ku sugan duleedka magaalada Baydhabo
dowladdu ciidamo fara badan ayay geysay taliyaal guuto ayaana loo magacaabay halkaasi kadib markii taliyay guutada 6aad iyo guutada 8aad lagu dilay dagaal dhawaan ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo kaasi oo markaasi eedeymo kala duwan loo jeediyay ciidamada lafta gareen oo la sheegay inay dagaalkaasi ka dambeeyeen balse Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo waraysi bixinay waxa uu sheegay in markaasi uu saraakiishaasi uu isagu magacaabay xilligii uu joogay madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa uu sheegay in dilka saraakiishaasi ay ka dambeeyeen waa markaasi xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab dowladdu tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay diyaaradaha Turkiga iyo sidoo kale agabyo kale ay ku daabuleysay magaalada Baydhabo oo sidii ay ula wareegi lahayd duleedka magaalada Baydhabo balse saaka waxa halkaasi ka dhacay dagaal kharaar oo u dhaxeeyo ciidamada daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen iyo sidoo kale xubno ka tirsan kooxda markaasi ama ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya weli ilaa haatan labada dhinac war rasmi ah oo ma saarin balse ciidamada lafta gareen oo qoraal kala duwan baraha bulshada ku baahiyay waxay sheegeen in markaasi iyaguna ay la wareegeen goobo muhiim ah oo u suurtagelin karta inay mar kale gacanta ku dhigaan magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladdu culays xooggan ayay kala kulmaysaa markaasi maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya si lamadana sidoo kale maamulka Galmudug ayay kala kulmaysaa culays xooggan taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad iyo waxa uu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug kulamo kala duwan ayuu la wadaa Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor balse lama oga natiijada ka soo bixi doonta xilligan waxay u muuqataa dowladda Soomaaliya inay cadaysyo kala duwan ay kala kulmayso maamulada dalka sidoo kale Hirshabeelle oo dhawaan gaaray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud weli lama oga halka ay ku jihaysan doonto balse mid ugu daran ayaa Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dagaal aad u kharaar oo xilligan oo markaasi aan idala hadlayo oo markaasi amaba ka soconaya duleedka magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya dowladdu waxay sheegtay in tallaabooyin xooggan ay qaadi doonto sidii ugu hortagi lahayd ciidamadii daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo xilligan ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna xarunta gobolka Baay halkaas oo ay sheegtay in markaasi si awood ah ay kaga saari doonto ciidamada daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo la magacaabay waqtigii uu joogay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana xilligan waxa uu sheegay inuu doonayo inuu dib ula wareego magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaar ku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya balse lama oga halka ay xiisadu ku dambeyn doonto Aadan Madoobe oo isagu loo doortay hogaamiyaha ku meel gaarka ama markaasi hogaamiyaha joogtada ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dowladdu si weyn ula damacsaneen ayaa xilligan calaamad su'aal weyn ay dul saaran tahay waxaana markaasi isha lagu hayaa sida uu ka yeeli doono ciidamadan markaasi muddada labada bil ku dhow ku sugan duleedka magaalada Baydhabo ee daacadu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen sidii dabcan uga saari lahaa ama markaasi xal siyaasadeed uga gaari lahaa madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ciidamada taabacsan lafta gareen wuxuu ku sugan yahay waqtigan magaalada Nairobi halkaas oo kulamo kala duwan ayuu ka wadaa sidoo kale halkaas waxa ku sugan taliyaha waa markaasi waa taliyaha booliska oo hore loo qaaday xilka oo taliye shub lagu magacaabo waxaana halkaas kulamo kala duwan oo kala wada Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen lamana oga waa markaas ciisada halka ay ku dambeey doonto hadaba waxyaabaha ka soo kordha dagaalkan ka soo cusboonaaday Baydhabo oo markaasi uu daacada u ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ama ciidamadii daacadu ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee weerar ku qaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa taabacsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa balse ciyaartan daawanaysa waxaan idin ka codsanayaa halkan haddaad nala soo gaarteen inaad shuruudaha buuxisaan si markaasi aan meel dheer u gaarno aad baad u mahadsantihiin